maalin ka hor ayaan u baxnay deegaanka Ceel Saliine oo ay dhawaan maleeshiyada Al-Shabaab sheegteen inay kala wareegeen ciidanka xoogga dalka 2 maalin ka hor. waxaa maalin kadib u hooday guddi qubaro ah oo uu hormuud u yahay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalab xeelaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo baarayaal ka kala socday hay'adaha baarayaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. safarkan oo ahaa mid dhulka ah ayaan ka baxnay xarunta taliska ciidanka xoogga dalka. geesiyaasha ciidamada xoogga dalka ayaa safarkan galbinayay waxaana ku wehelinayay warbaahinta dawladda. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa soo kormeeray fariisimaha ciidamada xoogga dalka ee deegaanka Ceel Saliine waxayna kormeereen goobo ay ka muuqdaan haraadiga khasaarihii gaaray maleeshiyada Al-Shabaab. go'go'a jirka naftii haligihii waday gaari ay qarax ka soo buuxiyeen iyo agab kale. ugu horreynba gudoomiye Shuute ayaa digniin kama dambeys ah u diray saraakiisha lagu aaminay agabka ciidamada iyo hogaankooda inaan loogu dul qaadan doonin dayaca agabka ciidamada iyo in uu u dhintay askari Soomaaliyeed mas'uuliyad laga baaqsan karay. waxayna wajihi doonaan saraakiishii ay ku cadaato natiijada sharci ee ka dhalan karta arrintaasi. waxaan halkan u nimaanay xeeraaliyuhu iyo guddigiisuba inay baaris wax ku ool ah oo la taaban karo cadeynayso cidii lahayd wixii dhacay mas'uuliyaddeeda inay soo sheegaan. haddii uu jiro dayacaas yaa qaaday ma taliska ciidanka le ma kan qaybta le ma saraakiishii maamulaysa ururka le ma ciidankii ka shaqeynaya halkaana le waa inay mas'uuliyaddaas cid qaadataa waay. annaga garsoor ciidan ahaan waxaan diyaar u nahay oo halkan aan u joognaa inay cidii ku cadaato mas'uuliyadda dayacaas cidii ku cadaato intilaab laga qaadaa. halkaanaan joognaa waxaan tegi doonaa xerooyinka oo idil oo ciidamada ay joogaan. waxaan hubi doonaa ciidan kasto xero kasto ciidankii ku qoraay ma joogaa mise ma joogo. haddii ay maqan yihiin maxay tilaab ka qaadeen saraakiisha joogta halkaasi maxay ku maqan yihiin ma ciidan jiraan ma ciidan jirina waxaasoo dhan waxyaabaha hubi doono halkan u joognay ka mid tahay. hubka ciidanka waa la isku xisaabinaa askari ka tirsan ciidamada qalabka sidana inuu si fudud amba si dayaca oo wax ku gaaraan waa la isku xisaabinaa. waxaan joogi doonaa maalmaha soo socdo xerooyinka idil gobolkan aan xerxere u tagi doonaa. waxaan ugu talagalnay arrintaasni in ay ka baxdo meesha in inta dhacdo qof ku dhinto hanti ciidan lagu waayo laga aamusaa halkaas inay arrintaas dhamaato halkan aan u joognaa. halkan waa Ceel Saliine waxaa ka dambeeya fadhi ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee halkan deegaansaday kana xoreeyay maleeshiyada Al-Shabaab. deegaankan waxa uu dhextaal u yahay oo uu xiriiriyaa deegaano ay ka mid yihiin Jidmarka number 60 Gandarshe Dhanaane iyo number 50. waxa uu ka tirsan yahay gobolka Shabeellada Hoose. maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo guddi baarayaal ah ay dowladda Soomaaliya halkan u soo dirtay sidoo kalena booqan doono fariisimaha ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka. Abduqaadir Ciise warbaahinta qaranka deegaanka Ceel Saliine.